nabigu habeenkii markuu soo tooso sallallahu alayhi wa sallam gelinka tam markuu soo tooso salaatul leelka uu soo kaco ayadahan uu aqrin jiray waana sunna in la aqriyo markaad soo kacdo ee salaatul leelka aad soo kacdo de qofka mu'minka ee ilaahay cabsidiisa subhanahu wa ta'ala ay ku jirto habeenkii iska jiifi maayo sida u jiifo waagu ugu bari maayo habeenka gelinkiisa dambe inuu soo kaco waqtiga fadliga badan ducada la ajiibo ee ilaahay uu leeyahay subhanahu wa ta'ala qof su'aalanaya majra ansiyo hal min dalibi haaja fawdiya hal min mustaghfirin majra mid dambi dhaaf in weydiisanayo oo aan u dambi dhaaf waqtiga waa habeenka gelinkiisa dambe athuluthul akhir way labada habeenimo wixii ka dambeeyo way labada markii la gaaro tu iyo wixii ka dambeeyo markii la gaaro waa waqtiga ducada la aqbal waa waqtiga fadliga badan in la soo kaco markaad soo kacdo waxa sunna ay salaatul leelka aad soo kacdo inaad aayaadkan akhriso rasuulku uu akhrin jiray sallallahu alayhi wa sallam inna fi khalqi samawati wal ard ila aakhir sura la surada aakhirkeeda markaasuu nabigu alayhi salatu wa salam yu tukanayay markaasuu waliba wuxuu akhrinayay adkaarta kale marka ay ducooyinka marka habeenkii la sii badiyo waxa kamid ah ducooyinka uu nabigu akhrin jiray allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa lakal hamd أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت به أعلم ونبي أورنجر صلى الله عليه وسلم آيات كان مركا نقرنا وإن دعاء النبي أخرنجي أنا أخرجنا وإن كنت ذالنا إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام رعنه لأن حياته طيبة أو حيكون جرتا إن رعنا النبي عليه الصلاة والسلام سنة دي سكو عمل فل إن القرآن كصفات كأونات المابية أنفير إمامك وإنا يا حسن بصري ورجل وحورنجر أحد مجربو رجالس القرآن قرآن كالله فريست إلا قام بزيادة أو نقص بو قف قرآن كالله فريست مجرى وقرآن كأخرية مجرى زياد لك عيا أما نقصان بو لك عيا معناه زياد لك عيا قرآن كم الرمين يا إلهي با كو أنفعي وكو عمل فليا أما النقصان باو إيمان يسو قرآن كي بو أخريي قرآن كي بو برتي قرآن كي لو شيغيا مركاسو هدنا كجيسانيا أحبابي في الله إلهي سبحانه وتعالى فلاحي الليبان ودن وحكو شيغي دادك أولو الألباب كاللي إرادة إلهي أوتي المامن ودادك إلهي أودورتي سبحانه وتعالى دادك أو صفاتك إلهي نوغتي المامن صفات أولي الألباب طبنك صفات دادك كل في ودادك الليباني فلاحي الليبان تي خيرك أي أسقنات إنان كده ينال لدونيا إنان رعنا لدونيا إنان كمد نقونا لدونيا waxa looga mid noqonaya waa maxay waa sifaadka way waxa looga mid noqonaya wax kale ma waxa looga mid noqonaya waa sifaadka way waxa looga mid noqdo darajada wanaagsan ee qaaliga ee ilaahay uu tilmaamay subhanahu wa ta'ala waxa lagu gaaray waa maxay waa sifaadka ilaahay uu tilmaamay sifaadka waa inaan ku dadaalno way sifaadka waa inaan ku sifowno way ballanqaadka ilaahay baan helaynaa subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala hana waafajiyo إلهي هنغا مدغو ددك إلهي uu doortay ee aqliga leh nidaha إلهي gartay ee ka faa'iideystay adduunyada iyo aakhirada ka faa'iideystay اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته